meesha loo socday guusha dhabtii ay jirto waa meesha balaayiin yeerska lagu noolaan doono waa janniya naar saadaradeed baa ilaahay markuu tilmaamay kuwa fitnada iyo imtixaanka sameeyana in cadaab kulul ugu dambeeyo kuwa iimaanka laga helanay inay jannooyin leeyihiin dalika alfawz ayaa ilaahay wuxuu inna batsha rabbika la shadiid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafuru al-wadud ذو العرش المجيد فعال لما يريد سورة انت هذا الدنبي إلهي وحليه ور إلهي قبشدي سوى مد أدق وحكى له إلهي نوت المامي إنه يهي فعال لما يريد وحد دونك سمايا وحكى له إلهي نوت المامي وحا أدونك كدعيا إنانو موغنين شاهد إنه يهي أو أركيه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلهي وحول وحك استور دعينا وانركيا مؤمن كلا جبيان أركيا دمر كلا لينا يان أركيا عرورت مرة رسان أركيا وحول وإيم مقدم بإلهي لي على كل شيء شهيد نوانه فعال لما يريد نوانه بإلهي لي غافل لك ما هي عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذا قفك مؤمن قصدني وحي نبرس يا كو وحبي لابتك حاجنن ولا يقول حق بتاع ما كان بعد عام الساعة بعد عام الدنيا وحن بكر دعي الدنيا ربي قال هذا معمول إيه أدوك كن على الطريق هذا هو الشيء الأول الشيء الثاني وحين دريم إن وقت كستوى مركز دتكم مدتشو قبين إلهي وصو صار من الدين تو عصبون يسيه ودتك الدين تدي بقويارة إلهي وحود دورتي غلام إنه النقضة دولك كان عند الدين تو صار نولينس تمعنى هدو حويان إن نكو حساب تنو نلش الدمان تجارهن عرورته ويل يراد ربي سالغي يا با ومدني إلهي كوبد باديو ويوم دن إلهي سورة القرآن كاكا ورميه وغلام وحلو قبد بادي هل ويل عرفت هاي الرأي إن القرآن كودجي إن فاتح هذا ودجي سيده وحقا نصوص قرآن حديثه وشرح سينتن كون متكمل الله أركين إلهي قعنته هذا كبد بادي هذا وحبك موجود إذا وحى التلمام يسا ماشى إنه وحكر رادين إنه ما لا نهين بإلهي وحكر قديه هذا واحد سنة مدحوينها هدي لك أنا ما لا وحول بها قاقل أنا ما هل كان هدي لك بوده لكن إلهي سبحانه وتعالى مركو وح بدلي هل ويلو يربو وحكو بدلي كرا وحي قصدنا نوت المامسة ومضى دن إيقولي ستي إيمانك هشي الدين تكون نولاتي غلامين وها عدة بدبادسي ثالث الأمر وحي نوت المامسة قصدتني ضدك أهل الشركة أهي inay jecel yihiin sharku inuu waaro xataa isagoo quran intuu dhinto in sharkiisa inuu la dhintee kuwa ka dambeeyana inay sharkaasi wadaan walidalik baa saaxirka kan boqorkii intuu tagay muxuu ka codsanayaa boqorka sixirka iyo waxaan inaanu dadka ka lumin deetana wuxuu leeyahay wiil yaro caqli badan oo kana keen si sixirku uu sii waaro taa macnaheedu waxa weeyaan war haddii dadka ahlu sharkiiba ay u xidhxidhan yihiin sharku siduu u waari lahaa adigu haddaad khayr rumaysantahay waa inaad u xidhxidhnaataa adna khayrkan sidii aad u waarin lahayd uu kaaga hadhi lahaa raabic ilamr waxaynu aragnay qisadatan wiil yar oo ilaahay karaamaad tiro badan la ka muujiyey waxaynu aragnay wiil yar oo dhagax intuu tuuro bahal magaalo u taag weyday ilaahay dhagaxiisa ku dilay waxaynu aragnay wiil yar oo ilaahay intuu u baryo kuwa indhaliyay indhuhu u baxayaan waxaan aragnay wiil yar oo kuwa baras qaba intuu ilaahay u baryo ay barasku ka kacayso waxaan aragnay wiil yar oo dadkoo dhamma intuu boqor dhan iyo dowlad dham isugu tagtay inay disho ilaahay baryayo le ilaahu iga fayd kuwa dhibaatadooda ilaahay ka faydayo taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ciddii qalbi suuban ula timaado daahira karaama hadday ka dhacdo ma kibro wiilkani ma odhan dad yahow آخر أنا قم بشفاعة قاضي أنا جاي قصة ورورة وإلا نكان كحرمة كان هذا قفدا بشنا ورينا يا مجرو سيدا بعض أهل الطرق الشيخنا يا يوم حبابك الدعين كان إلهي ما كورم يوحى كرامك العظيم
waxa alla ka warramaya subxaanahu wa tacaala ama axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay inoo sheegaysaa wiilkan in waxa karaamo ka dhacay idan karaamaadku waa ta'yiid ilaahay uu ku ayiday dadkiisa saalixiinta ah mana sheegayso qofka karaama ka dhacday inuu ka weyn yahay qofkan karaama ka dhicin bale waxay culimmadu yidhaahdaan wakhtiga dacful iimaanku tiro batay karaamaduna tiro badataa xataa wakhtiga iimaanku qawigayay waxay culimmada qaar yidhaahdaan taabiciintii dambe iyo kuwii ka sii dambeeyey baa karaamaadka la wariyaa ka tiro badan yihiin wakhtigii saxaabada kuwa la wariyo waxay yidhahdaan saxaabadu in badanoo ka midii waxay gaadheen xad iimaankooda uu dhammaystirmay ama meel xooggan uu gaadhay yacni yaqiin bay haysteen karaama hadday dhacdiyo haddaanay dhicin ba aanay tasacsucayn laakiin dadka marka dacfigu ku dhaca ilaahay subxaana wa tacaala karaamaadka uu muujiyaa si maxay iimaankooda uu xoogo magaalo dhan oo gaalo ah ayaa wiilkan yar ilaahay karaamaadkan ka muujiyey si uu diinta ugu soo hago oo ay u islaamaan khaamis alamr wiilka kan iyo qisadiisu iyo dadka mu'miniinta ka dambeeyey iyo ninkii boqorka la fadhiisanayey iyo wadaadkii raahibka ahaa iyo dadkii mu'miniinta godka lagu gurayey iyo ilmihii yaraayo hooyadii lahaa sabir hooye xaq baad ku taagantahay dhammaanteed waxa ay tilmaamayaan iimaanka dhabta ahi geerida inuu iimaanka ka doorbido yacni qofka mu'minkaa agtiisa waxa ugu qaalisan inuu yahay maxay iimaankiisa iyo caqiidadiisa inaanu waxba siisanin xataa haddii la yidhaha waa lagu dilayaa oo markaa boqorka ninkii la joogay waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo wuu diiday raahibkii waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo waa diiday wiilkii yaraa waa la dilay iimaankiisa inuu ka noqdo waa diiday magaaladii dhammayd ee hadda rumaysay geeri iyabaa la kala doonay geeri caadiya weliba maaha waa geeri layshiilayo daawaha dab laysku gurayo geeridaa kale xanuun kulul dee xabad lagugu dhufto waxa laga yaabaa inaad markiiba dhibato laakiin haddii moofada lagu saaro oo kolba cadku juquuq yidhaahdo way ka gedisan tahay geerida caynkaasiyabay ka doorteen iimaankooda idan waxaa meesha kaloo taalla qofka mu'minkii inuu diyaar u ahaado inuu naftiisa u tadxiyeeyo u dhinto fii sabiili iimaanihi qisada kani waxaa kaloo tilmaamaysaa gaalnimadu dadka qaar markay xad ka gaadho inay bini aadamtinimadu ka lunto oo inay ku raaxaystaan noole la gubayo bini aadamkii la nooc ahaaya oo boqorkan iyo kooxdii la socotay waa kuwan bini aadamka shiilaya qisadani waxay kaloo ina tilmaamaysaa qofka mu'minka ay xilliga dhibtu qabsato hadduu rabbi si dhaba u baryo in ilaahay inta badan ka faydo inankan yar markay ku soo ururtaba ilaahay buu baryey inta askartu qabato oo caynkanoo la yidhahdo buurtaa lagaa tuuraya rabbi buu baryo wuxuu leeya ilaahu kuwan sharkooda ay dhaafi dabeetana ilaahay baa dhaafiyey badday geeyeenoo isagaan waxba kala haysan wax xoogoo gacantiisa ku jirin laakiin laa taxzan ila allaha macanaa dii buu rumaysnaa ilaahu kuwan sharkooda adigu igaga fillow buu yidhi ilaahay baa kaga fillaaday waxay kaloo tilmaamaysaa qisada tani adduunku in laysku keena itixaamayo ilaahay wuxuu yidhi walow shaaa allahu lantasara minhum walow yashaau allahu lantasara minhum ilaahay hadduu doonayo gaalka waa ka xoog badin laha waa ka guulaysan lahaa soocaynkaa maaha ilaahay hadduu doonayo dunida tan kun fayakuun buu odhan lahaa waar idinka dhulku haydan la go'a buu odhan lahaa waa la go'i lahaa laakiin ilaahay baa wuxuu ina leeyahy walow yashaau allahu lantasara minhum ilaahay hadduu doonayo iyaguu ka guulaysan lahaa ee maxaa ilaahay doonay walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun waan baan isku kiin imtixaamayaa baa ilaahay leeyay anigoo eegaya bal inaad sabirtaan iyo in kale taa macnaheed waxa weeyaan qofka mu'minka inuu sabirka diyaar u noqdo duruufta iyo dhibta iyo mushkiladdu waxay doonayso ha noqotee qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu sabro waxaa kaloo qisadana tilmaamaysa ilaahay subxaana wa tacaala gaalka kibre markuu xad kibirkoodu gaadho in ilaahay mashaakil ku itixaamo muujiya liidashadooda ninkan dadka laynaya wax kasta samaynayey ilaahay wuxuu ku itixaamay isaga iyo dowladdiisii iyo askartiisii iyo wixiisii oo dhammi wiil yar inay dilaan wiil yar bay u taag waayeen inay dilaan waa boqortooyo dhan iyo dowladdan iyo askarteedii iyo waxeedii oo rabta hal wiil inay disho laakiin awoodi kari weyday waa caya ilaahay subxaana wa tacaala oo fashilinaya hal wiil ayay isugu tagtay
dabeetana halkii wiil bay dili kari waayeen ilaa iyo wiilka yari uu ku dhintay markii isaga awaamirtiisa la yeelay sidaa yeelo sidaa yeelo sidaa yeelo sidaa yeelo markaasuma dhiman karaya waxaa kaloo qisadani inoo tilmaamaysaa rajul alcaqiida mararka qaarkood in dacfi ku dhici karo oo waxay ahayd in la qariyo uu qarin waayi karo marka dabka la saaree la cadaabo inuu wax iska sheegi karo waayo dadkan iyagoo iimaan u dhintaa haddana qisadu waxay inoo sheegaysaa markii la soo qabtay ninkii boqorkee la cadaabay wuxuu sheegay maxay wiilka markii la cadaabay isna muxuu sheegay raahibkii buu sheegay yacni qofku markuu toorjarka iyo dhibta galo mararka qaarkood xiina dacf waa dhici kartaa inuu siro badan iyo wax badan sheego laakiin haddana waxaa laynoo tilmaamaya kuwii sirtaa sheegay markay arrintu gaadhay gaalnimo iyo islaam gaalow ama waa ku dilaya inay doorteen dilka inay ka doorteen ayuu sheegaya waxaa kaloo uu sheegaysaa qisada tani koow macallinku ardaygiisa inuu tashjiiciyo oo haddii wax wanaagsan ay ka muuqdaan inuu ku ammaano macallinku inuu ardaygiisa u tababaro inuu wax dheeraan doono macallinku inuu ardaygiisa ugu talagalo inuu noqdo qof bulshada intuu isagu hayay horumar ka sameeya laakiin macallinku inaanu ardayga kaga talagelin inuu isaga nuskha minhu noqdo copy dadku hadda waxay jecel yihiin inta badan nin waliba kursigiisa inaan loogu iman kanaan ku fadhiyo inaydan daydu ku soo fadhiisanin aniguna aan ka warramo laakiin haddaan macallin dhaba ahay waa inaan jeclaadaa mid iga fiican inuu halkan soo fadhiisto inaan u tareyngareeyo dadku inay noqon karaan wax aniga i dhaama waayo dadkan ilaahay baa subxaana wa tacaala awoodo siiyey tiro badan leh inta igu aasan in ka badan baa dad badan oo halka fadhida ku aasan laakiin waxay u baahan yihiin tafjiir in bamku si uu qarxo dee dab yarunbaa la sudhaa un isagaa markaa arla dhan gubaya dad badan baa waxay u baahan yihiin in ignitionka in loo shido uun dan waxaagii wax ka fiican buu keenaya saa daraaddeed wuxuu sheekhii ardaygan yar tababaraya ku dadaalaya inuu yidhaahdo anta afdalu mini al'aan waa mas'alati tawaaduc inaad xaasid ka noqonin wadaad haddaad aragto wadaadku hadduu arko wadaad kaloo ka yar muxaadarooyin fiican inuu yaro garbeeyo siraa warkani dadkaabuu kaa qabsan doonaaye meeshayuu kugu cidhiidhiye siyaasigu arko nin ka yaro firfircoon warkani meeshuu malcaamadda qur-aanka ka dhigaya siraa mid kaa yaro tajwiid badan baa yime yuu xerta kaa kaxaysana ama ardada kaa kaxaysana qofba hadduu qof meesha ka saaro waxba laakiin asalku dadka aakhiriya janno doonaya waa inay tawaaducaan waayo mid iga muxaadaro fiican inaan soo saara baa iiga ajar badan le tayda waayo kan haddaan soo saaro wuxuu isagu shaqaystanaya ilaahay subxaana wa tacaala wax ka mid waana ii qoraya raahibku juhdigii uu bixiyaa wiilkani ku dhashay wiilkani cidlo kama soo amaamudmin waxyi kuma soo degin isagoo meel cidlaa fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxyi kuma manaysanin laakiin ilaahay wuxuu sabab uga dhigay inuu raahibkani soo saaro idan raahibka kani isagaa masder u ah xasanada tanba xasanadaad adigu masderka u ahayd inaad colaadiso maaha waa adigiiyo adigiis colaadinaya marka kan waayo xasanadan isagaa bilaabo biqiliyey isagaa soo saaray inuu wiilkani wiil ka noqdo walidaalika inuu colaadiyo maahe waa inuu yidhahdaa anta afdalu mini alyowm maanta adaa iga fiican oo iga roone hore u soco waa inuu yidhahdaa waxaa kaloo xadiidkani uu inoo tilmaamaya dadka badh baa waxay moodayaan jaanibka milatarigaa ama jaanibka siyaasiga ama kuwaas inuu yahay waxa ummad abuuri karaa haddaan xukuumad la samayn haddaan dowlad la samayn haddaan jihaad la samayn aan wax kalaba dhalanaynin can ariiqi alquwa un inuu xaqu ku muuqdo maya waa ka mid jihaadku waa ka mid xukuumo islaamiya laakiin waxaa kaloo ka mida buu xadiidkan inoo tilmaamaya sanaa'ic almacruuf dadkoo wanaag loo sameeyaa inay tahay waddo loo maro bulshada badbaadadeedii yacni ka gaajoonayoo wax la siiyo ka qaawanoo mare la huwiyo ka buko oo dhakhtar loo dhiso dadkoo la gargaaro waayo wiilkan ilaahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inuu bulshada ku hantay koodii xanuunsanaya oo ilaahay u baryey kiindhaa beelaya oo ilaahay u baryey yacni wanaaggu bulshada u sameeyey buu ku hantay mujtamaca kani inay aaminaan oo ilaahay rumeeyaan subxaana wa tacaala walidalik sanaa'ic almacruuf waa ariiq ka mida turuqa loo maro
يعني bulshada inta badan waxa ku dhacda nin waliba wadadu hayo mooyaan wadooyinka kale oo dhan baadil buu yaqaan haddii ka khayrka